sixir bararka shilinka Soomaaliga mudana gudoomiye mudanayaal sidaad la socotaan waxa muddooyinkii dambe aad hoos ugu dhacay qiimaha shilin Soomaaliga ka soo gaaray heerkii ugu hooseeyay muddo 10 sano ku dhow arintaas oo saameyn ku yeelatay dhammaan dadweynaha iyo dawladda Puntland gaar ahaan shaqaalaha dawladda ciidamada iyo bulshada danyarta ee dakhligoodu ku tiirsan yahay shilin Soomaaliga halisna ku ah noloshooda haddaba guddiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka oo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah kana jawaabaya cabashooyinka ka soo gaaray dadweynaha wuxuu bilaabay tallaabooyin isdaba joog ah oo wax laga qabanayo xaaladda sicir bararka isagoo kulan isugu yeeray hay'adaha maaliyadda ganacsiga iyo amniga kulamadaas waxaa la isla gartay in si wada jir ah looga hortago lana sameeyo baaris dhab ah oo lagu ogaanayo waxa sababaya hoos u dhaca shilin Soomaaliga waxaana arintaas loo saaray guddi gaar ah oo ku sameynaya baaris dhab ah kana soo tala bixinaya arintaas ukurgelidii guddiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka golaha wakiilada waxa uga soo baxday sababaha keenaya sicir bararka shilinka Soomaaliga inay ka mid yihiin kuwan soo socda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka marka laga reebo Puntland oo joojiyay isticmaalka shilinka iyagoo aan waxna ku bixin waxna ku qaadan shirkadaha wax dhoofiya ama wax soo dejiyo oo yana aan isticmaalin shilin Soomaaliga shilinka oo laga joojiyay gobolada kale oo lagu soo daabulay Puntland dawladda Puntland oo noqotay maamulka kaliya ee shilin Soomaaliga isticmaala canshuuraha ganacsatada dawladda Puntland oo aan waxba